inaga soo gaaraya magaalada Beydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in dhacdooyin aad u foolxun ay ka dhacayeen maalmihii u dambeeyay oo ah in kufsi aan arki jirnay in loo geysto haween hadda kufsi loo geysanayo caruur yar yar oo rag ah taasi ayaa dadweynaha argagax ku beertay ficil foolxun dadweynaha qaar ay si kale ku fasireen dad mas'uuliyiin ah oo sheegeen in hay'adaha qaarkood ay ka dambeyn karaan NGO barnaamijyaasi oo lagu caawinayo diinteena islaamka hay'ashe qaar ka mid ah raggaas ayaa daqiiqadii u dambeeyay Beydhabo wararka warbaahinta maxalli ah ay soo tabiyeen oo lagu kalsoonaan kara in ragga qaar ka mid ah toogasho lagu fuliyay goob fagaaraha inta la sugu wacay lagu dilay maamulka ay aad kaga mahadceliyeen shucuubta ayagoo ku tilmaamay in arintaasi ay tahay wax aad wanaagsan oo ay kaga mahadceliyeen dadweynaha oo aad ku taageereen maadaama ay ahayd fal argagax leh oo dadweynuhu ay aad ugu naxeen sababtoo ah waa wax la maqal lana arag dunida inteeda kale waa wax aad iyo aad lagu xumaado maadaama arintu ay tahay wax maaragta dhibaato aad u baahsan oo intaba aan loo qaadan karin marka in shariicada islaamka la waafajiyo ayaa ah mid ugu wanaagsan ودوينا عادي وفرحان مادام شرع إسلام ك وحكويني سنجر توقشنا إتاي مادام فلال أرجع للرجال جيستين وبدها سوماليو يعالم كنتي سكله يعاد ولا يابين سببته هو فعل أطفال حن أو إن بقى لود القادم كريم تاني وحكمي تاي العادين كوا عجيب سنة دوينها أي أراه هذا الكسر دي بني وحنا كتر مامين إن رجال إن كلية إن إتاي إن قصقاص تودا لبوفلية أو شرع الله وحياة قبته كلية ما هن إن يعني إن لسيدايا أمس وحياة كله تصابته وحي جستين وحان لوجو برنين دخن كسومالي دا دينتين صوبان oo intaba ka soo horjeesnay igbiyahan aadamiga kale ku dhaqmo dunida oo gaal iyo muslim intaba ma waafaqsano in arrimaha aynkaas ay ku kacaan dad waaweyn oo maragta qaangaara hatta daadooda qaarkood ka muuqanaysa daad aad u weyn oo ay dhaafeen 20kii oo waliba ay daad u weyn ku jiraan marka aqliga aynkaas ah iyo maragta iyo waxyaalahaas oo ma ahan wax loo dul qaadan karo runtii oo dadweynuhu aad ay ula yaabeen argagax ay noqotay lama filan lama arag oo kaleeto oo aan dunida lagu arag walow isla dhacdooyin kale ay ka dhacayeen magaalada Beydhabo oo tantii ka horeysay ay ahayd isla sidaan oo kale aan war halkaasi ka soo yeeray walow dhagaha iyo maqalka intaba ay u rooneen oo dhammaan shacabkii Soomaaliyeed ay go'aan ku gaareen inaan la sii boobooyin comment ahaan iyo baraha bulshada qaybtood kale marka sidaas ay ku soo afjareen way aad ayeen isaga ilaalinayeen in ka hadlaan sababtoo waa wax aan balaga hadli karin sababtoo ah wax aad u culus waa in xaaje aad u cakiran maadaama falal argagax la ay tahay waxaana haboon in dadka aynkaas ah la isdhaafiyo dunida laga masaafuriyo maadaama ay geysanayaan wax aan aad u xun oo aad looga argagaxay marka warbixintaasi ayaan ku soo koobaynaa intaasi barnaamijyo kale taadii aynu aragno oo ka hadlay warbixinaasi wixii ku soo kordhan waa idin soo gudbin doona waxaan diyaar u nahay arrimaha bulshada inaan waqti walba idin soo gudbino halkaasi ayaan barnaamijkeena ku soo afmeeraynaa waxa isla soo gaarnay gunti iyo gabagabadii barnaamijka waxa leeyahay inta ku cusub janalkan baaxada weyn waxa leenahay in ay subscribe ay rahan like share comment intaba barnaamijyada si aad ula sii socoto oo halkan aan kugu soo gudbino barnaamijyo tayo leh oo aad iyo aad ugu faa'iidaan iyo waxyaalo badan oo macluumaad ah oo sidoo kale oo ku saabsan isla barnaamijyada degdega ah oo aan idin soo gudbino waqtiyadan aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa isla daawashada janalkan daawateen iyo booqashada aad ku soo gaarteen waxaana leenahay inta barnaamij aynkan oo kale aan ku kulmi doono mar kale iyo mar kale dhageystayaasheena iyo dhammaan daawadayaasha halkan ku xiran oo xogta sida rasmiga kaga qaatay iyo barnaamijyada tooska intaba waxaan leeyahay waad mahadsantihiin